halkani huwa janalka Gunta Wararka kusoo dhawaada wararka maanta aan idin haynana waxa ugu dooran qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo faahfaahin ka soo baxaysa ayaa daawan doontaan. Kenya ayaa qarka waxay u saaran tahay inay isaga harto kiiskii dacwadda badda ee Soomaaliya. kulankii golaha wasiirada Jubbaland oo looga hadlay arrimo xasaasi ah maxay ka yiraahdeen xarigga wasiirka amniga Jubbaland waan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay khilaafka cusub ee soo kala dhaxgalay dowladda federaalka iyo ahlu sunna iyo warar kale u diyaar garooba goordhow. waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 5 bisha 9 sanada 2019. waxaan ku bilaabaynaa qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. ugu yaraan 2 ruux ayaa ku geeriyootay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay bartamaha magaalada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. qaraxa ayaa ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, isla markaana waxa ay la qaraxday dad howlo nadaafadeed ka waday meel u dhow fariisimo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gudaha degmada Owdheegle. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in qaraxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidamada commandoska ay ku leeyihiin degmada Owdheegle. waa qaraxii labaad tan iyo markii degmada Owdheegle ay la wareegeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya, iyadoo kankii ka horeeyay lagu weeraray xarun saldhig oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin Owdheegle, kaas oo ahaa weerar ismiidaamin ah. gunta wararka ayaa weli nagala socotaan. kulanka golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay arrimo xasaasi ah. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha xukuumadda Jubbaland. ugu horeyn waxa uu u koorgalay dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha ay xalka kaga gaartay tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee dhawaan ka dhacay, iyada oo la soo dhaweeyay in wax walba oo tabashooyin ah lagu xaliyo sharciga iyo sidoo kale hay'adaha dawladda dhexdooda. dhinaca kale golahu wuxuu cambaariyay xariggii sharci darrada ahaa ee dowladda federaalka ay kula kacday wasiirkii amniga Jubbaland sida ay hadalka u dhigeen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, iyada oo bilo ka hor maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in la laalay dacwadii ka taalay, waxaana golahu uu sheegay in cawaaqibka ka dhashay falkaas sharciga ka fog ay mas'uuliyadeeda qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo golahu uu ka hadlay xayiraadda dhinaca duulimaadyada shacabka ah ee dowladda federaalka kusoo rogtay dadka reer Jubbaland, waxaana howlahaas iyo xarigga wasiirka amniga loo xil saaray guddi ka kooban 7 wasaaradood, iyada oo guddiga la faray in ay xal rasmi ah ka keenaan culeyskan dadka shacabka Jubbaland ah haysta. Kenya waxa ay qarka u saaran tahay in ay ka noqoto dacwadii kiiska badda ee Soomaaliya kala dhaxeeyay. xeeralyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Kenya ay qarka u saaran tahay in ay isaga baxdo kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya ka yaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in Kenya hadda ay ka fakarayso sidii kiiska ay uga hari lahayd. hadalka Axmed Cali Daahir ayaa imaanaya iyadoo 2 maalmood ka hor Kenya ay maxkamadda caalamiga ICJ ka codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda si ay u qorato qareenno cusub. markan waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay khilaafka soo kala dhaxgalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaa. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya in uu soo ifbaxay khilaaf hor leh oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka ahlu sunna wal jamaa. khilaafka cusub ayaa la sheegay sida aan xogta ku helnay in uu imaaday kadib markii ahlu sunna ay codsatay in la hoos geeyo guddiga doorashooyinka Galmudug. ahlu sunna ayaa waxa ay ra'iisul wasaare Khayre hor dhigtay in maamulka doorashada marka la qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo la filayo in laguna qabto magaalada Dhuusamareeb. dowladda Soomaaliya ayaa codsiga ahlu sunna ka hortimid, waxaana taas ay sababtay in khilaafka meesha uu sare gaaro. waxaana saacadihii la soo dhaafay dhacay
kulamo gooni ah oo arrimahaas looga hadlayay oo u dhaxeeyay ahlu sunna iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxyaabaha ay ahlu sunna dalbadeen ayaa ah in ay qabtaan guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale maamulka howlaha doorashada. Wararka qaar ayaa sheegaya in sababta uu shirka dib u heshiisiinta shalay u baaqday ay ahayd khilaafkan darteed. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb geysay ciidamo badan oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda, waxaana ay weeqday awoodii ciidanka ahlu sunna ku lahayd magaalada Dhuusamareeb. Guud ahaan warkii aad ka daawaneyseen channelka Gunta Wararka waa inaga intaas. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh oo ka mid noqo daawadayaasheena, gambaleelkana ha iloobin si uu kuu soo gaaro muuqaalka durba markaan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka warkeena. Nabadgelyo.